maxaad ka ogtahay ama se ka taqaanaa taariikhda iyo barbilowgii u horeeyay ee qaar ka mid ah applicationada ugu waaweyn ee aan isticmaalno maanta sida Facebooka iyo kuwa lamid ah kusoo dhawaada saaxiibayaal xalqadeena maanta oo aynu kaga hadli doono taariikhda iyo aasaaska shanta barnaamij ee loogu isticmaalka badan yahay caalamka oo dhan ugu horreynsa waxaan ka codsan lahaa inaad nagu soo biirtid barnaamijkana noo share garaysid si uu u gaaro dad badan Instagram waa mid ka mid ah barnaamijyada ay iska leedahay shirkadda Meta Inc. horena loo oran jiray Facebook Inc. waxaa la aasaasay bishii October 2006. Aasaaska shirkaddan waxaa iska lahaa Kevin Systrom oo ah Amerikaan waqtigaas da'diisu ahayd 27 sano jir. Instagram ayaa xilligaasi noqday abkii ugu dhaqsiyaha badnaa xagga koriinka taariikhda oo dhan. 2 sano kadib shirkadda Meta ayaa ku iibsatay lacag dhan $1 bilyan, balse Kevin Systrom ayaa sii ahaa madaxa u sarreeya ee shirkaddan ilaa laga gaaray iscasilaadiisa sanadku markii uu ahaa 2017. Abkan waxaa soo booqda bil kasta 2 bilyan oo ruux taasoo ka dhigaysa abka shanaad ee loogu isticmaalka badan yahay caalamka oo dhan. Website-ka Twitter oo isna laga leeyahay waddanka Mareykanka xaruntiisa guudna ay tahay gobolka California waxaa la aasaasay bishii March ee sanadkii 2006. Abkan waxaa sameeyay dhowr qofood oo saaxiibo ah waxayna ku guuleysteen inay ka dhigaan mid ka mid ah kuwa ugu caansan baraha bulshada looguna aaminaada og yahay. Haatan se waxaa gacanta ku dhigay oo iska leh ninka ugu hodansan adduunka waana mulkiilaha shirkadaha Tesla iyo SpaceX ee lagu magacaabo Elon Musk. Wuxuu ku iibsaday $44 bilyan dabayaaqadii sanadkii hore ee 2022. Twitter waa website-ka afraad ee loogu isticmaalka badan yahay caalamka oo dhan. Shabakadda Facebook waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu dhaqaalaha xooggan uguna shacbiyada badan waxaana iska leh kambaniga weyn ee Meta Platforms horena loo oran jiray Facebook Inc. Facebook waxaa laga leeyahay waddanka Mareykanka xaruntiisa guudna waxa ay ku taalaa gobolka California. Mark Zuckerberg iyo qaar ka mid ah saaxiibadiisa ay ka wada tirsanaayeen jaamacadda Harvard University ayaa sameeyay application-kan sanadku markuu ahaa 2004. Xilligaas magacii ugu horeeyay ay u bixiyeen waxa uu ahaa FaceMash waxayna ugu talagaleen kaliya inay isticmaalaan ardayda jaamacadda oo kaliya balse sanadku markii uu ahaa 2006 shabakadu waxa ay go'aansatay inay aqbasho qof kasta oo ka weyn da'da 13 sano jir meesha uu doonaba adduunka ka joogay. Daraasadii u dambeysay ee 2022 waxay sheegtay celcelis ahaan in 2.9 bilyan oo ruux ay soo booqdeen bil kasta oo sanadkaasi ka mid ah taasoo ka dhigtay barta saddexaad ee lagu adeegsiga badan yahay caalamka oo dhan. YouTube waa barnaamij laga leeyahay waddanka Mareykanka xaruntiisa guudna ay ku taal gobolka California. Waxaa la aasaasay 14 February 2005. Steve Chen, Chad Hurley iyo Jawad Karim waa saaxiibo iyo shaqaale ka wada tirsanaa shirkadda alaab-iibinta ee Bible. Saddexdan nin waa maskaxdii ka dambeysay curinta iyo aasaaska website-kan caanka ah ee YouTube. balse 18 bilood oo kali ah kadib shirkadda Google oo iyana laga leeyahay isla dalka Mareykanka ayaa iibsatay kambaniga YouTube waxaanay ku gadatay lacag dhan $1.65 bilyan. Markii ugu horeysay ee muuqaal YouTube la soo geliyo ayaa ahayd bishii Abriil 2005. Muuqaalkan waxaa ka soo muuqanaya Jawad Karim oo ka mid ah aasaasayaasha YouTube isagoo oo ciwaanka muuqaalkan uu yahay Me at the Zoo ama aniga oo beerta xayawaanka ku sugan ayaa ahaa kii ugu horeeyay ee la soo geliyo. Sidoo kale muuqaalkii ugu horeeyay ee 1 milyan oo daawasho ah helay ayaa ahaa muuqaal uu ciyaartooyga hore ee reer Brazil ee Ronaldinho waxay siin ugu samaynayo shirkadda caanka ah ee Nike. Ninka u sarreeya haatan website-kan YouTube waa Neil Mohan oo ah Hindi ku dhashay waddanka Mareykanka halkaasna ku soo barbaaray. bil kastana waxaa soo booqda 2.5 bilyan oo ruux taasoo ka dhigan inuu yahay YouTube website-ka labaad ee loogu isticmaalka badan yahay caalamka oo dhan. Google ama Google sida dadka qaarkiis ay ugu dhawaaqaan magaciisa weeyaane waa website-ka baadhiseed ee ugu weyn adduunka looguna adeegsiga badan yahay. Waa hal abuur ka yimid 2 nin oo saaxiibo ah oo lagu kala magacaabo Larry Page iyo Sergey Brin. Website-kan waxay aasaaseen 1998 waxaana uu noqday mid aan laga maarmi karin waqti xaadirkan. Xarunta guud ee shirkaddu waa California, waddanka Mareykanka. Google waa shirkad ku bilaabantay in wax laga iibsado oo kaliya ah balse iminka waxa ay bixisaa ama ay iibisaa in ka badan 50 adeeg oo
ay ka mid yihiin email, mobilo iyo software. Applicationo badan oo waaweyn oo caan ah ayaa hoos yimaada Google oo companigu iska leeyahay, waxaana ka mid ah YouTube, Gmail, DoubleClick, Google Chrome iyo Android. sidoo kale qaar badan oo kale ayaa jira. Google halkii maalin waxa baadhis laga sameeyaa in ka badan 3 bilyan oo mar, waana sababta uu yahay kan loogu booqashada iyo isticmaalka badan yahay. Madaxa u sareeya ee haatan waa Sundar Pichai oo ah nin asal ahaan ka soo jeeda wadanka Hindiya. 2015 ayaana loo doortay jagadaasi kadib markii uu Larry Page ku wareejiyay xilkan.